والله ما أنت لا دونه. بارك الله فيك الحمد لله. waxaan ku sheegayaa horta adduunyada horta sideedaba marna waa kaa qusul siisaa marna waa kaa oysiisaa aaran maanta waa maalin ciid ah waxaan ahay sideen maanta dhashay oo kale waxaan helay xuriyadeedii aad baan ugu faraxsanahay waxaan aanin muddo dheer xirnaa. الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. maanta waa khamiis waa barnaamijkeenii dhibanaha ee STN television aad nooga barateen maanta waxaad moodaa barnaamijkan inuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore mar walba waxaad nooga barateen idiin soo gudbina dhibane laakiin maanta waxaan idiin wadnaa waxaad ku faraxdaan war farxad leh waxaa dhinac fadhiya ama hareerahayga fadhiya waa laba walaalo ah ninka baad waji garanaysaan xuseen baa la yidhahdaa insha allah taala xuseen jeelaani sayid wuxuu u qareemayey walaalkii macnaha oo dhibana ahaa cabdiraxmaan jeelaani alxamdulilah rabbilcaalamiin cabdiraxmaan maanta xorriyaddiisa helay inagana waxaan sii daynay bishii 18 bishii August 2022 maantana waa 29 September inta u dhaxaysa waa garan kartaan macnaha alxamdulilah rabbilcaalamiin sheekh cabdiraxmaan assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. seetahay ما شاء الله أدبا وعنها إلهي مهديس. maxaad dareemaysaa maanta الحمد لله ما أنتو حان دريمي يا فرحة آيات وبلارن ما أنتو ومالين عيد وحان هاي سدين ما أنتو دشي وكله وحان هلاي حرية ديدي أدبا نغو فرحتنا هاي وحان عن المدة دير حرنا دوات سنة من حرنا بانا هاي سديد بلوت يو أبف marka alxamdulilah maanta xorriyaddeeda aan helay iyo telefishinka STN oo aad uga qaalin qaatay si aan xorriyaddeeda u heli lahaa maanta aan hor fadhiyo ku faraxsanahay alxamdulilah waan soo dhaweynayaa. بارك الله فيك الله كبرك يا عبد الرحمن برنامج كده بناها كوسو لويننا ان شاء الله تعالى بل وحير انت كجرتي دبنا la kulantay ma wallahi inta aan xabsiga ku jiray hadda wax dhibaato ah aan la kulmay ma jirin ما شاء الله ku caafimaad qabay ما شاء الله nolosheedana nolol dhexe bay ahayd ما شاء الله wax dhibaato kala ma kulmin xaq jir dil ma kala kulmin nolol xumo kala ma kulmin ما شاء الله sideeda bilood waxa iga maqnaa xorriyaddeedii inaan helo الحمد لله alxamdulilah maanta aan xorriyaddii aan helayna alxamdulilah waxaan dareemayaa farxad aad u ballaaran sababtoo ah qofka bini'aadamka haddii nolol kasta uu haysto laakiin maxbuus uu yahay wax macna uma samaynayso muhiimaddu waxay tahay inuu qofka uu helo xorriyaddiisii maanta aan helayna aad baan ugu faraxsanahay. يا أم هاد علينا waxaan u mahad celinayaa dowladda Puntland waxaan u mahad celinayaa telefishinka STN oo kaalin weyn oo mug leh oo muuqata ka qaadatay dadka shacabkan ay hore u arkeen cabashadeeni oo haddana maanta ay daawanayaan inaan xorriyaddeeni helnay oo farxad aan taaganahay sida shalay anagoo dhibana ah walaalkii uu taagnaa maanta isagoo faraxsan uu taagan yahay baan aad ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo ugu mahad celinayaa dadka kale kaalmaha xoogan ka qaatay oo iyagana in badan ordayay waqti badan igu lumiyay si kasta ay noqoto inta qof oo ka kaalin qaadatay oo dhan waan u mahad celinayaa. ما شاء الله الله يجزاك حسين هاي faraxsanahay waxaan faraxsanahay inta la doono oo qof bini aadan uu farxi karo ama qosli karo ما شاء الله maanta waxaan ku faraxsanahay anigoo ka imid muqdisho ka imid Puntland u imid inaan walaalkayga xorriyaddiisii iyo inaan u soo celiyo kuna guulaystay dad badan ay ka mid tahay idaacadda STN television kaalinta koowaad ka tahay kaalinta lamaad xuquuqul insaanka ay tahay ayadana aan u mahad celinaya iyo inta ehelka ah iyo dowladda Puntland inta qareena inta oo ka kaalin qaadatay xorriyadda walaalkayga inuu helo oona u fariisan oona u seexan. ما شاء الله العين حسين maalintii 18 August ay ahayd aan barnaamijka sii daynay runtii muuqaalkaas dad badan baa aad uga jira runtii markay arkeen oo intaadii ma sha Allah alxamdulilah rabbil caalamiin bal maanta qosol isku day والله ما أنت لا دونه. بارك الله فيك الحمد لله. waxaan ku sheegayaa horta الدنيا horta sideedaba
marna waa kaa qusul siisaa marna waa kaa oysiisaa run ahaantii wax yar waxaan rabaa inaan dadka shacabka u jeediyo wax yar tusaale yar run ahaantii ubadka adiga aad dhasho labada wiil adiga aad dhasho ama wiilka iyo gabadha adiga aad dhasho jaceylka aad adigu u qabto waxaa ka weyn labada ayaga ay isu qabaan run ahaantii aniga jaceylka aan walaalkaygu u qabo horta mid aan qiyaasi kara ma aha taasina mid hadda anigu aan bilaabayo ma ahane nabiyaalkay soo mareen qaasatan hadda markaan qisadan kuu sheegayo waa nebi yuusuf markii uu walaalihiisa ceelka ay ku rideen asigoo nool baa ceel lagu riday marka ceelka lagu riday waa laga tegay oo la kaleeto ganacsataa heshay oo ka soo bixisa ceelka walaalihiisii waa lagu qabsaday adigu waa gateen ninkan masar wuxuu ka noqday al-ultimo boqor marka wuxuu soo maray rafaad badan uu soo maray xabsi uu soo maray wax badan uu soo maray markii la wareystay waxaa la yidhi adduunyada intaad joogtay nebi yuusuf maxaa kuugu dhibka badnaa alayhi salaam ma garta ma sheegin marka walaalihiisii asigoo nool ee ceel ku riday oo ku dhiman kara waxyaabo badan ku noqon kara ma uusan sheegin dhibta ay gaarsiiyeen ama wuxuu yidhi waxaa igu dhibka badnaa xabsiga aan soo maray oo sulaaqa darteeda la ii xiray macnaha qofka walaalkaaga wax waliba uu kugu sameeyo macnaha ma dareemaysid laakiin xabsi markii lagugu xiro waxyaabo badan baa dareemaysaa run ahaantii maanta waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkayga jaceylka aan u qabo iyo meesha aan ugu imid iyo riyadeyda sida ay igu rumowday farxadeeda maanta de haddaan ooy maanta xataa ooyinteeda looma qaadan karo inaan macnaha dhib aan u ooyayo inaan farxad la ooyayo waa la dareemi karaa maasha allah waxaan dhihi lahaa qof walba walaalkiisii ka xiran ama ehelkiisii ka xiran yahay sida cabdiraxmaan oo noogu soo baxay iyo si ka fiican inuu ugu soo baxo baan ugu duceynaynaa aana rajaynaynaa dhibkana waxaa dareemi karaa qofka gudaha ku jiro qofka banaanka joogo maalintii jumcaha keliya ku imaan karaa wuxuu jecel yahay ama waxaad jeceshahay unbuu kuu keeni karaa laakiin dhibta aday ku haystaa waxaan jecelahay nin waliba ee qofka xiran yahay siduu cabdiraxmaan noogu soo baxay iyo si ka fiican ayadoo la jecel yahay lasoo dhaweynayo loo qusliyo inuu soo baxo ilaahay idinkiisa soo aragtaa barnaamijkan dhibanaha oo STN barnaamijkan horta runta markaan kaaga hadlo waxaa jiraan waxyaabo badan oo san dawladda aysan ogeyn ama xer ilaaliyaalka aysan ogeyn oo waxaa jira oo qarsoon ama loo hoosgelin karo ilaa ayaga waa bini aadan ninka barnaamijka keenayna waa bini aadan laakiin markii barnaamijkan dhibanaha ah qofka kaleete markuu uu ka hadlo waxaa laga yaabaa ayaga ahaan inay arkaan in ninkan cadaalad u sameeyaan ama kiiskii dib ay u furaan ay baaraan wixii runa ah meesha ay ka soo baxaan maasha allah marka barnaamijkan dhibanaha ah anigu dhib uma arko sababtoo ah qof aan awoodin inuu meesha tago ama cabsanaya ama waxyaabo badan markuu barnaamijka ka hadlo ayaga run ahaantii dawlad ahaan ayaga xil waxa loogu saaray shacabkana waxa laga yaabaa baqdin ama magaciis waxyaabo badan inuu ku yimaado aysan ka hadli karin laakiin barnaamijka markay dhageystaan waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo xaq ah inay ka helaan si macnaha qofkaasi ayagii oo jiifay shalay waxay isku dayayaan inay jiifka ka soo kacaan qofkan dhibnaa ah ee wax u qabtaan hadduu cisbitaal yahay haddii gaalshira uu yahay haddii xag nolosha ay tahay haddii xag familiya tahay waxaa laga yaabaa qof walba oo bini aadan ah inuu damiirkiisii kaco oo macnaha barnaamijkii uu gudagalo uu baaro oo salkiisii uu gaaro barnaamijkan dhibnaha aniga waxaan dhihi lahaa aad baa u fiican yahay run ahaantii adoo dhaqaale haysta lacag haysto dee haddii sharci uu ku qabto dhaqaalahaaga wax ma tiraayaan laakiin dhibkaaga markii aad sheegato waxaa laga yaabaa inuusan dhaqaalaba kaa bixin oo qofkiina dadkii shacabkii iyo dawladdiiba cadaaladii ay arkaan saa wax lagugu qabto marka barnaamijkan dhibanaha aad baan macnaha anigu u danaynayaa xuseen jeylaani safar dheer baa soo gashay oo walaalkaa dartiisii baad u timi puntland muqdishoad ka timi puntland baad timi guushaadina waa gaartay ma haddaas ilaah baa iska leh alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda maxaa rajaynaysaa marka والله أنا وهذا وحنا من سنة هاي مستقبل كيجا ينولش إذا أنا وحنا كل سنة مقدشوا روحانتي ما دام ما أنت حماس ده وقع سنتها هذا وقع سنتها هاي نقول حتى عن قاعدين كرو أو عن كوسو جيدين كرو مجران ما شاء الله أنا قلنا إذا وعبد الرحمن روحانتي وحنا رواينا دب فريسانو قانك ولالكي وسوجديو إن أنكر ما شاء الله ما شاء الله خير الله كسيو
وبرنامج كي دبناها وما أنت فرحت إنه وضع تهي وإنه وضع فرح سنة هذا ما أنت يدا محمد سعيد كامريستا وهنن آد أن أقيمية أكتيد أنا قيمة كلها ما شاء الله صوبته كامري دي سي دوس دي سي آد بان أوجهله مستقبل كمر كان قول سنة إنه حنجعل هاي إنه يقول لك غيب قاطع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله برنامج كي دبناها هو نوبرتين خميس والبا ما أنت وحنا قلت قلت معلمي هراء ومعلم فرحة ما دام علينا عيب وفديو عبد الرحمن ودبنا هراء عدنا حريتي سهلي إن شاء الله وتعالى برنامج كان برنامجين خلاص صعب وعندك كتجينا سيداسيو نبتقليو